majalada caanka ah ee Time ee ka soo baxda dalka Mareykanka ayaa sanad kasta gabagabadiisa soo saarta liiska hal-abuurka adduunka ku soo kordhay ee ugu fiican, gaar ahaan waxyaabaha ku cusub tiknoolajiyada ee nolosha aadamaha fududeeya. liiskan waxaa soo xula guddi xeerbeegti ah oo ka kooban wariyaal iyo tifatirayaal warbaahineed oo ay majaladu adduunka oo dhan ka soo xushay, waxaana aynu ka soo qaadanaynaa 10 hal-abuur ee ugu fiican sanadan 2019. soo gudbinta barnaamijkan waxaa kaalin muhiim ah ka geysatay shirkadda korontada ee Nexom. sameecado maqal oo hadlaya. waxaa sanadkan dunida ku soo kordhay sameecadaha caafimaadka ee maqalka caawiya oo codka si tayo leh u gaarsiinaya qofka, isla markaana yareynaya buuqa iyo sawaxanka ku lamaan codka. si uu saafi u noqdo, sameecadahan waxa ku rakiban qalab dareen wata oo awood u leh inuu dhawaaq sameeyo ama uu ka jawaabo su'aalaha qaarkood. tusaale ahaan, waxa uu awoodaa inuu tarjumo hadallada afafka kale oo qofka adeegsanaya uu uga dhigo afkiisa uu fahmi karo. waxa kale uu qalabkani suurto gelinayaa inuu fariimo digniin ah u diro qofka isticmaalaya, tusaale ahaan marka uu qofku dhacayo inuu dhawaaqo ama marka ay xaalad caafimaad darro ay jirto inuu u sheego. waxa kale oo uu qalabkani qiyaasayaa xarakaadka iyo jimicsiga qofka isticmaalaya. muraayado arag oo hadlaya. waa muraayad aan aragga oo keliya caawinayn, balse fududaynaysa inuu qofku uu fahmo qoraalada, xitaa haddii aanu ku fiicnayn ama aanu aqoon u lahayn wax akhriska. waxaa ku rakiban qalab tiknoolajiyadeed oo awood u leh inuu garto wejiyada dadka iyo noocyada kala duwan. adeegyada tirada badan ee muraayadani qabato waxaa kale oo ka mid ah in ay cod uu qofka xiran maqli karo ugu akhrido qoraalada. usha indhoolaha waa ul nooca indhoolayaasha haga ah oo ku shaqaynaysa tiknoolajiyad suurto gelinaysa in dadka aragga uu ka maqan yahay ay ogaan karaan waxa ku hareeraysan iyo khataraha ku soo fool leh. ushan waxaa ku samaysan sameecadu qofka sitaa ka maqli karo hadba digniinaha ay bixinayso oo cod ama gariir ugu sheegaysa. waxaa lagu xiri karaa taleefanada casriga ee gacanta, kadibna waxay la shaqaynaysaa khariirada Google Map si ay qofka sitaa ugu sheegto meesha uu marayo, halka uu ku socdo, jihada ay ka xigto, masaafada ay u jirto iyo goobaha muhiimka ah ee ku dhow sida meheradaha ganacsiga iyo goobaha adeegyada dadweynaha ee cisbitaalada iyo saldhigyada biliisku ay ka mid yihiin. Kursaad Saylan oo u dhashay waddanka Turkiga oo indhala ayaa isaga oo ka jawaabaya caqabadaha uu la kulmo uu go'aansaday inuu aqoontiisa tiknoolajiyada uga faa'iideeyo dadka araggu uu ka maqan yahay ee isagu uu ka mid yahay. waxaana uu hal abuuray qalabkan casriga ah oo uu u bixiyey WeWalk, oo ka kooban 2 eray oo Ingiriisi oo la isku diray oo macnahoodu yahay waanu soconnaa. waxaa hadda la wadaa dadaalo ay shirkado waaweyn ku sii horumarinayaan qalabkan, oo shirkadaha gaadiidka iyo guud ahaan adeegyada dadweynaha loo samaynayo barnaamijyo la shaqaynaya ushan si ay qofka indhoolaha ah ugu hagto adeegaas. adduunyada maanta waxaa laga sheekaynayaa baabuur duulaysa, laakiin dadka indhoolaha ahi weli ul keliya ayay isticmaalayaan, ayuu yidhi Kursaad Saylan oo u warramayay telefishinka CNN, isagoo faahfaahin ka bixinayay dhibaatooyinka ay dadkani kala kulmaan helidda adeegyada dadweynaha ee goobaha gaadiidka laga raaco ay ka mid yihiin iyo guud ahaan noloshooda. waxaana uu sheegay in taasi ay tahay sababta ku abuurtay inuu ka fekero curinta qalabkan caawin kara dadkaas. The most important feature of this product is not a product, it's a continuously improving platform for visually impaired people. So being able to include third-party applications, just like I can download apps on my phone, you want the ability for new things on your phone. And we made the first example of these integrations with the Google Maps. Now WeWalk can give turn-by-turn navigation to me as well. And also we have been working on improving, integrating Alexa and also ride-sharing apps as well. ushani waxa ay ku shaqaynaysaa koronto, waxaana ay leedahay baytari la dabayn karo oo halkii mar ee la dabeeyo 5 saac ku shaqaynaya. ushan
ayaa qiimaheedu hadda suuqyada caalamka ay ku yaalaan $500 Maraykanka. qalabkan uu ikhtiraacay Kursaad Saylaan ayaa laga rajo qabaa inuu caawiyo dad 250 milyan ka badan oo ah indhoolayaasha ama araggoodu daciifka yahay ee dunida daafaheeda ku kala nool. qalabka tiknoolajiyada ku shaqaynaya ee sanadkan soo kordhay waxaa ka mid ah mishiinka garka lagu xirto oo si fudud oo aan jirka dhaawac iyo xanuun gaarsiinayn u xiraya. waxaana mishiinkan uu awood u leeyahay inuu ilaaliyo heerkulka maqaarka gadhka oo ay markasta kala mid dhigayso wejiga intiisa kale. sidoo kale qalabkani uu awood u leeyahay inuu fahmo laablaabka maqaarka qofka si ay uga hortagto in ay sarto ama ay nabar u samayso marka uu laablaabka maqaarku ka hor yimaado mishiinkan. beero guurguuraya oo aan biyo badan u baahnayn. warwarka ugu badan ee adduunka maanta ka jira waa cabsida laga qabo cunto yaraanta. sababaha ugu badanna waxaa ka mid ah tirada dadka adduunka ku nool oo si xawliga u kordhaysay isbeddelka cimilada ku dhacay oo hoos u dhac weyn ku keenay wax soo saarkii beeraha dunida. waxaa sanadkan soo baxay beero tiknoolajiyada looga faa'iideeyo afka ingiriiska lagu yidhaahdo aerovamis. waxaana lagu beerayaa meel dadan, waxayna qaadanayaan biyo 95% ka yar biyaha ay qaataan beeraha caadiga ee ku yaala beeraha dusha furan. arrinta la yaabka lihi waa in beerahan aan sida caadiga ah lagu beerayn ciid, balse waxaa lagu beerayaa cudbi la qooyey oo halkii ciidda u gelaya, kaas oo biyaha yar ee lagu shubo u haynaya geedka, halka markii hore ciiddu biyaha kala bar ay qaadan jirtay. beeraha aerovamis waxaa hadda tijaabadii koowaad ku baxay dhir aad u badan, waxayna u badan yihiin dhirtaasi noocyada khudradda cagaaran ee uu kaabashku ka mid yahay. biyo hawada laga sameeyey. qalabka tiknoolajiyada looga faa'iidaystay ee sanadkan ku soo biiray nolosha aadanaha waxaa ka mid ah talaagad qaboojisa biyood awood u leh inuu biyo nadiif ah oo la cabbi karo uu ka sameeyo hawada. mishiinkan waxaa lagaga shaqaysiinayaa korontada ama tamarta qoraxda, waxaana uu awood u leeyahay biyaha uu sameeyo inuu mariyo marxalado kala duwan oo nadiifina, taasoo u suurto gelinaysa inuu biyo caafimaad ahaan wanaagsan oo nadiifa uu ka sameeyo hawadana uu ka soo qabto xitaa goobaha wasakhowga hawadu ay ka jirto ama ku badan tahay. mishiinkan oo awood u leh inuu maalin kasta sameeyo 26 litir oo biyo ah waxaa samaysay shirkad Israa'iil laga leeyahay oo lagu magacaabo Watergen. quful ku furmaya sumadda faraha. qufulada casriga ee hadda adduunka laga isticmaalaa waxay u badan yihiin kuwo laga maarmay furihii oo nambaro sir ah lagu xiro, laakiin tiknoolajiyada ayaa mar kale sii casriyeysay qufuladii oo sanadkan waxaa soo baxay quful la dabaynayo oo leh dareen farta marka la saaro garanaya qofka kadibna uu qufulku isfurayo. qufulkani waxa uu leeyahay xusuus awood u leh inay kaydiso akhriska faraha 10 qof oo kala duwan, taas oo fududaynaysa in goobaha ay wada isticmaalaan dadka kala duwan ee wada isticmaalaya goobta lagu xiro. remote control eegmada ku shaqaynaya waa farsamo casri ah oo u shaqaynaysa sida qalabka xakamaynta ee afka ingiriiska lagu yiraahdo remote control. farsamadan casriga waxaa lagu rakibayaa qalabada casriga ee ka mid yihiin kombiyuutarada, telefishinada iyo guud ahaan qalabada korontada ku shaqeeya ee loo isticmaalo remote controlka. kadibna waxa uu suurto gelinayaa inuu la shaqeeyo indhaha qofka. qalabkan oo gaar ahaan loogu talagalay dadka naafada ah ayaa ku shaqaynaya barnaamij lagu dhajinayo ama lagu samaynayo qalabkan oo leh awood uu ku sawiro indhaha qofka kadibna u leexanaya ama qabanaya hadba qofku ishaarooyinka ishiisu waxa ay dalbato. cunto daray ah markasta. daraasado kala duwan ayaa lagu ogaaday in qiyaas ah 40% cuntooyinka adduunku ay xumaadaan ayna ka gudbaan marxaladda la isticmaali karo, sidaas awgeedna la iska qubo. sababta ugu badan ee cuntadaas ku keenta in ay xumaatana waa qaabka qofka haysta u kaydinayo ama goobta uu ku kaydinayo oo aan ahayn mid ku habboon ilaalinta cunnadaas. shirkadda Apple Science
ayaa sanadkan 2019 waxa ay soo saartay qalab caawinaya cuntada gaar ahaan khudradaha kala duwan iyo cuntada asalkeedu dhirta tahay in aanay xumaan ama isbedel aanu ku dhicin marka muddo la hayo. qalabkan ayaa ah qolof samays ah oo cuntada marka la dhexgeliyo suurto gelinaysa in cimrigeedu uu 3 laab u kordho. qalabkan oo weli tijaabooyinkii hore ku jira cuntooyinka lagu kaydiyay ee uu ku guuleystay inuu cimrigoodii kordhiyo waxaa ka mid ah khudradda afakaadhada iyo liinta. jaamacadda bariga afrika waa jaamacadda ugu faca weyn Puntland 1999 ayaa la aasaasay waana jaamacadda ugu faraca badan Soomaaliya 7 gobol oo ka mid ah Puntland ayay faracyo ku leedahay.